of course madaxda dhaqanka salaadiinta oo Sultan Maxamuud uu ka mid yahay iyo qof waliba munaasabad halkan ku fadhiyaan ku soo dhaweynaya waxa la igu yiri horta laba arrimood oo yaryar baan doonayaa inaan isdul taago mid waxa weeye jaamacadan heesaha iyo arrimaha ay soo bandhigtay oo runtii ka turjumayay madasha halkan aan u joogno heestii Axmed Maxamed Mooge Liibaan ee macalinka muxuu ahaa waanada macalinka iyo heestii waaba bariyay Maxamed Axmed Kuluc waxaan u maleynayaa labaduba toddobaatanadii bay soo baxeen dhalinyartii markaa yaryarayd heesahaas oo cusub ku madadaalan jiray baan ahayn markaa runtii waa appropriate weeyaan heesahaasi in halkan oo kale lagu soo qaado waxa kale oo uga mahad celinayaa heesta kale ee dumarku waa iftiin indeed Soomaaliya dumar la'aan maxaan qaban lahayn uma garanayo wallaahi dumar la'aan waxaan qaban lahayn anigu uma garanayo ragow maxaad ku eedantihiin haddaanay dumarku joogin now laba arrimood oo kale aan taabto mid runtii waxa weeye arrinta dhibaatada leh ka dhacday magaalada Togwajaale yaa disasterka meesha ka dhacay iyo gubashada iyo baabaa hantida ummadda meesha ku baabaaday waxaan doonayaa inaan halkan ku xusno waan ka tiiraayeysanay arrinta waxa kale oo ii raaca aniga meelo badan oo Soomaalidu leedahay oo ganacsi badan ay ku jiro ayaa iska daba gubanayeen Kismaayo ku jirta Isliiba ku jirta Muqdisho ku jirta halkan Hargeysa baa ku jirta marka arrimahaasi talow ma si alla iyo coincidental ba mise wax kala jira waa arrin u baahan in laga fikiro fikrad u baahan inta hadda halka kaga gudbo mudanayaan iyo marwooyin maanta waa maalin farxad badan la weey waa maalin shaqo badan oo aad soo qabateen halkan lagu soo gunaanaday oo lagu soo dhaweeyay oo lagu daahfuray waxa weeye maalintii ay bilaabmaysay noloshiina inta ka hadhay sida ay yiraahdaan ayaa maanta bilaabmaysa shaqadu bilow bay idin tahay marka annaga dadka iyaga waaweyn waxaan qaban karnaa wuxuu yahay inaanu hogo tusaalayn iyo khibradayada wax idinka sheegno wixii aan soo marnay xanuunka badnaa inaan wax idinka sheegno horow socodkiinana aan gacanta idin qabano idin dalaandalino ayaa runtii loo baahan yahay hadal badan ee haan lagama buuxiyo afartaas sannadood wax badan baad soo qabateen wax badanna way idin harsan yihiin waxaan doonayay tacliimaha kala duwan ee kala levelka inaan garab dhigo sidii aynu u noolayn awooyaasheed iyo aabayeeshan u noolaadeen inaan isgarab dhigo tacliintu way ku ilaalinaysaa protection bay ku tahay wixii noloshaadii bay protect garanaysaa protection kaloo miyiga jira ayaa jira oo musas iyo bood la yiraahdo iyo wuxuu reerku isku soo wareejiyo hadal dheer u gali maayo laakiin waxa jirta mus baa jira oo anagu aan ku muska xoolaha lagu xareeyo baa jira waa muska yar ee gaaban muska anagu waxaan isiri muska yar hadaad soo oodo waa high school certificate weey ka ku xiga waa mustambeedka reerku dacwada iyo wixii yaryar kaga soo oodo kadinka mooyaane inta kale way soo oodan tahay marka hadaad muska adkaysato wax ku soo galayo badani ma ay jiraan bachelor's degree-ga weeyaan baanano isiri bachelor's degree-ga weeyaan baan isiri haddii dhulku dhibaato badan yahay intii ila garanaysa dhulku hadduu dhibaato badan yahay oo waraabayaal jiraan iyo wax soo dhaca muska dabadiisa ha taq wax la yiraahdo laga sameeyo qodan meel baa la qodaa reerka ku soo wareegsan si waraabu markuu dhacisaa ugu dhaco aroortii isagoo galgalanaya dalka ugu tagaysaa dabeetana waad is protect garaysay you protected yourself from enemies waraabaha iyo wixii lamida ka ugu dambeeya oo inta badan aan la isticmaalin waa kala yiraahdo boodka aad iyo aad u ballaaran oo weyn ha taqdaanu waxaan ku sheegay waa master's degree
both ka u dambeeyana waa PhD program. Once you do that, your life almost always guaranteed way. Marka sidaasa wax walba isku ilaalin inaad isku ilaaliso naftaada iyo reerkaaga iyo nation-ka aad ku ilaaliso wax ku tarto. Aanu kala markaa aniga subject gelaysiiyay waana soo koobaya sustainable development baa laysiiyey ardayda dhaqaalaha baratay iyo kuwa climate-ka iyo environment-ka bartay si fiican bay u fahmayaan waxa uu yahay sustainable development aan kala qaada labada waa development hore u soco oo positive weeyaan libaaxiye iyo waraabiyaal hadday joogaan hore u soco faa'iido ma leh hore u soco wax wanaagsan ku talaabso weeyaan development oo laga hadlayo production iyo productivity ayaa laga hadlaya sustainable development waxa weeye sustainable waxa weeye kelmadaasi waxa weeyaan dhaqaale koraya oo isaga iswada macnihiisu yahay waxa dhaqaalo kaaga soo baxaya hadduu waxaasi burburo isaga iska soconaya example baan idin siinaya haddii waddankiinu oil buu leeyahay ama dahab buu leeyahay because of that lacag badan baa haysataan laakiin haddii dahabkii meesha laga saaro kobtii baad ku noqonaysaa it is not sustainable maxaa markaa looga jeedaa sustainable mid waa taa aan idin sheegay ee ku saabsan environment-ka iyo sustainability-giisa oo ah dhirta ha gubin wax walba maanta ha fuuqsan si dadka kaa dambeeya generations to come aad wax ugu reebto make it sustainable development wax walba maanta ha qaadanin waa qayb soo baxday 20kii sano u dambeeyay oo kaasi waa sustainable development from the point of view of the climate now sustainable development kale baa jira oo xagga dhaqaalaha sustainable development kale oo dhaqaalaha baa jira wuxuu yahay economic development baa jira saa ila garanaysaan economic development baa jira social development waa jira labada waa isku parallel mid baa ka kale haga economic development ma jirayo sustainable haddaan social development haddaan u jirin social development markaa aan ku horeyno social development aan ku horeyno waxa weeyaan in dadka maskaxdooda la develop gareeyo oo dadku ay gartaan meeshay ku socdaan waxay samayn karayaan waxaanay samayn karayn consequenceska looga iyo constitutionka iyo regulationka ay dadku bartaan conscience-kooda laga shaqeeyo ayadoon cidina ku daba taagnayn aad wasaqda meesha ku tuurtay iska diido adigoon cidina ku soo eegayn inaad wax xadin adigu iskantarosho waa cilmiga weeyaan waxaas in dadka maskaxdooda la develop gareeyo dabeetana taasi development ka yimaado ayaa la sustainable development from the point of view of economics kaasa sustainable wixii kale oo dhammi waxaa ku soo galay markay dhamaadaan waa burburayaan marka waxaan halkaa ka sheegay waxa weeye waqtigu ay ugu kooban yahay sustainable development waa mindka maskaxda an example in siiyo waddanada adduunka waa la kala qaybiyey raga ayaa kala qaybiyey developed countries bay yidhaahdeen developing bay yidhaahdeen underdeveloped bay yidhaahdeen less developed bay yidhaahdeen fragile bay yidhaahdeen fragile ayay yidhaahdeen failed bay yidhahdeen failed waa waxba uu garan waayey waxba uu ka dhacay hadduu ka dhaco in calankana la laalaabo ayuu khatar ugu jiraa hadduu ka dhaco mar oo sovereignty-ga aad weydo markuu dalku waxba soo saaran kari waayo markuu waxba samaysan kari waayo markuu cid kale ku xidhnaado kabaha iyo shaarka iyo cuntada iyo wax walba dibadda uga yimaadaan dee iyadoo laga joojiyo unbay ku xidhan tahay marka maxaa markaa waddannada qaarna loo leeyahay halkaasay joogaan qaarna loo leeyahay halkan hoostay joogaan arrintaa ina ka shaqaysaan oo akhridaan ardayay ayaa lagama maarmaan ah waxaan idiin sheegayaa arrintaasi ma aha arrin ku saabsan inaad oil badan soo saartay dad badan oo oil soo saara oo weli developing la yidhaahdo jira haddana markaad income per capita-ooda eegto very high weeyaan development ma aha sustainable-na ma aha because oilka maanta haddii la xidho kabtooda bay ku noqonayaan waxaa markaa loo baahan yahay inay dadka la develop gareeyo tacliinta la baro hoosta laga soo bilaabo attitude-ka iyo perception-ka people-ka la bedelo
ayaa very important oo noqdaan development oriented naftooda inay ku filaadaan ayaa very important waxa aan doonayaa developmentka la sheegayaa talow ma adigoo badweyn leba dad badweyn leh oo aan waxba hayn baa jira talow ma adoo kalluun badan leba adoo leba ayaan waxba hayn talow ma adoon bad lahaynba maya oo qaaran bad lahayn baa cirka maray yaa talow muxuu yahay ma adoo populationkaagu adduunka ugu badan yahayba maya taana maaha marka waa inaynu su-aasha isweydiinaa maxaa qolana ka dhigaya horumartay qolana xagga hoose joogto waxaasoo dhani qayb bay ka ciyaarayaan developmentka but they are not the only factors the only factor guarantee garaynaysa inaad horumarto waa adoo ka shaqeeya maskaxda dadkiina maskaxda ka shaqeeya oo dadku iyagu ay goostaan inay wada fadhiistaan constitution soo saaraan qawaaniintooda soo saaraan ku shaqeeyaan qofku aroortii iyadoo cidina eegin shaqadiisa yimaado sideeda yimaado waan uga mahad celinayaa qolada jaamacadda maanta 9ka furayn abay dhaha 9ka furayn ya oo qof waliba shaqadii loogu talagalay qabto ayaa horta developmentku kaasu yahay khayraadka dadka sameeya manufacturingka dadka sameeya waxa jira wadano aan waxba lahayn oo waxa la waxay soo dhoofiyaanba raw materialka meel kale ka keenaan maxay hayaan maskax bay hayaan marka waxaan u baahanahay marka haddaan doonayno adduunka inaan la tisqaadno tacliintu waa number 1 weeyaan haddaan doonayno adduunka inaan la tisqaadno now waxaan doonayaa inaan marka waanadeydii halkan ka soo jeediyo waanadeydii baan halkan soo jeedinayaa marka u horeysa waxaan idinku ducaynaynaa inaad shaqo heshaan sidii gabadhii igu horeysay tirada marwadii igu horeysayna volunteerism waa very important weeyaan ama mutadawacnimadu inaad ku bilowdo shaqadu Soomaalidu waxay eegtaa dawladda loo shaqo tago bay eegtaa maaragtay adduunka ilaahay dawladda shaqadeedu 10% kama badna private sector-ka ayay tahay dad ka shaqeeyaan la develop gareeyo dawladdu facilitate garayso in private sector cirka maro oo dadku halka wada shaqeeyaan shaqada marka barito waxa doonaysaa inaad ka shaqeysaa ama galabta waa inaad job description ka aad samayso CV-gaaga ka shaqeyso dabeetana meel alla meeshaas leedahay waxba ku jira CV-gaaga oo tafatiran oo waxaad qabatay aduu volunteerism jira ku samaysan tacliintaadii ku samaysan mostly inaad meelaha aad geyso ayaa lagaaga baahan yahay inaad master degree samayso ama PhD da samayso extremely important weeyaan because way ku caawinaysaa maarad possibility ka job hesho ayaa sii weynaanaya haddaad taas samayso oo labadaas samayso shaqada markaad hesho waxa ilbaxnimadu ku jirtaa inaad shaqadaada ogaato waxa ay tahay macnaheedu yahay markaad shaqadii soo gasho ninka ku sareeya ama gabadha ku sareeyay waxaad weydiisaa job description kaagu wuxuu yahay baad weydiin yaa waxa loo mudane job description kaagu waa maxay iyadoo qoran waa in lagu siiyaa leena hadii kale wax qabanayso ma garanaysid maar job description kaaga terms of reference kaaga in lagu siiyo inaad markaa taa ku shaqayso ayaa idinku waaninayaa waxa kale idinku waaninayaa maalin walo alla soo godaba waa inaad wax soo saartaa wax soo saarkuna ma aha inaad product soo saartaa hadba waxaad ka shaqaynayso wixii lagugu talagalay maalinta inaad qabato waa inaad bari la sugin maalinta dhamaysaa galabtii markaad sii rawaxayso you should feel good about yourself inaad maanta wax qabatay yaa inaad wax qabatay number 3 waxa oraya waxa weeye qofka ku sareeya waay qofka ku sareeya madaxdaada inaad respect baa lagaaga baahay hierarchy baa jira hada abaha madaxweyne yahay halkan waxaan ka sheegayaa example baan idin siinaya halkan aan soo arkay anigu bariga yara cid kastaaba aad isku dhawaatiin laakiin hierarchy meesha jira waa inaad respect garaysaa meesha tagayso qofka ku sareeya waa inuu ogaadaa waxaad qabanayso qofka ku sareeya waa inuu ogaadaa reportskaaga waa inaad bixisaa evaluate yourself maalintii waxaad qabatay Amerikaanka waxay dhahdaan markay aroortii shaqada qaataan galabtii si rawaxayaan another day another dollar macnaheedu yahay maanta alle waa soo shaqaystay dollarkaygii meesha ku jira bay oran innagana waxa laga yaabaa in shaqaba tagin baa laga yaabaa marka waa la daba joogaa
isku tasho is very important isku tasho in yari dhegeysta waxaan doonayaa example baan doonayaa inaan siiyo isku tashada in yari dhegeysta please example kan idin siinaya wuxuu yahay markaan jaamacadda galay anigu oo undergraduate-ka maanta dhamaysteen aan ku jiray experience aan soo arkay baan doonayaa inaan idin kala dhiciyo sida bini aadamku u kala duwan yihiin sida nations u kala duwan yihiin American tagay anigoo lacag badan haysan jaamacaddii baan galay sanadkii u horreeyay baan iska bixiyay sanadkii labaad kii saddexaad kii afraad meel ku iman doono cidina war uma hayso markuu dhamaaday samarkii soo galay baan dacayna shaqaysto base waxa la igu yiri the foreign student baa taayo dibadda kama shaqayn kartid laakiin jaamacaddu hadday shaqo ku siiso waad ka shaqayn okay nimankii jaamacadda haystay baan u tagay hoolal sidan oo kala bay yiraahdeen baa la xaarayaa samarka waana la maydhayaa samarka maxaad qaban kartaa bay yiraahdeen waxaad ii dirataan xoogaygaan hayaayo waanan maydhi waanan xaadhi waxaad qabataan halkii horta lay qoray waxa maalintaa layla qoray gabadh caddaana oo iyaduna levelkaa suura eegada isku tashadan ka hadlayaa gabadhii markii layla qoray waan isbaranay markaasee waxaan ogaaday inay gabadhan madaxweynaha jaamacaddu aabow yahay waan yaabay anigoo dee Soomaaliya ka yimid waan yaabo waxaan oo maxaa ku waalay soo aabaha jaamacadda haysta markaasee waxay tiri aabahay ma isaga ilaa aniga أنا واش قيسنا يا ويتري أبهاي ولي واحد تري وحنوم بهاد علينا يا ويتري وإيجا يا بيسي أبهاي هو يدي بانوم بهاد علينا يا يو إيجا أقول هذا أنا قصدي تمرين أقل قد كسير نولا هذا بيد إيه تري أنا قصدي تمرنا إن أقل قد كسير نولا هذا أي أنا بهاد علينا يا ويتري أنا واحد قال صباح يا سمر كيوردن قولي ماشي بود حارين مركا أهرنت إسكوت شادو هرتوات هاوي نفط هذا كوكل صارو adigu waxaad soo saarto samayso yaa waxaad indhib Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaabay Soomaalidu leedahay waayay mahmaadu Soomaalidu mahmaab bay leedahay waxay yiraahdaan nin ama gabadhba waa inta reerkiisa ka soo hadha macnuhu waxa horta isku filow markaad isku filaato waxa ka soo hadha ayaad nin ku tahay ama qof dumar ku tahay waa inaad contribution samaysaa ina shaqada igu kooban laakiin maalin baan idin iman doonaa readmas ya maalin baan idin iman doonaa waxaa ka wada hadli doona oo tafatiran iyadoon xagga dambe dhigta wax la iiga sheegay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh I love you guys